هناك الكثير من النساء على هذا الكوكب، ولكل واحدة منهن صفات تميزها عن الأخرى، فالبعض منهن نحيفات، بدينات، غليظات، أنيقات أو جميلات، ولكن يجب أن تحذر، فهناك أنواع من النساء عليك أن تفكر جيدا قبل اتخاذ قرار الزواج بهن. السلام عليكم. فضلا رجو iska ilaaliya inaad guursataan gabdhaha leh astaamaha kan. kow, inanta xanaaqaya qaylada badan. haddii ay gabadha aad jeceshahay ay aad u xanaaq badan tahay ama aad u qaylo badan tahay, had iyo jeerna aad u timaaddo iyadoo xanaaqsan, ka fogow guurkeeda, xataa haddii aad marar badan ku guulaysatay inaad dejiso xanaaqeeda. labo, inanta anaaniyadda. haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol farxad leh, ka fogow haweenayda anaaniyadda oo wax waliba la jecel nafteeda, waayo qofka caynkana lama qaadan kadhid nolol raaxo leh. saddex, inanta lacagta jecel. gabadha hantida iyo dhalaalka sida xaddhaafka u jecel ma noqon karto xaas wanaagsan oo lagu nasto, waayo mar waliba waxay ka eegtaa dhinaca dhaqaalaha. marka dhaqaalaha la waayana jacaylkana waa la waayayaa. afar, inanta xafladaha jecel. gabadha had iyo jeer lagu soo casuumo xafladaha ay ka qayb gasho xaflad kasta, ogow kuma noqonayso xaas wanaagsan, waayo waxay la qabsatay dabeecaddaas, waxaana dhacaysa haddii ay xataa carruur ku dhasho inay barqacad guriga dusha uga xidho ka dhaqaaqdo. nambar 5, inanta dadka istusisa. gabadha jecel had iyo jeer dareenka iyo indhaha dadka kale inay ku soo jeediso nafteeda, ma wanaagsana guurkeedu. iska ilaali, sababtoo ah waxa ay si joogtaa ugu dhici doontaa ficillo aan wanaagsanayn oo ay rabto inay dadka kale iyada raali geliyaan. inanta istusiska badan. gabadha jecel had iyo jeer dareenka iyo indhaha dadka kale inay nafteeda ku soo jeediso, ma wanaagsana guurkeedu, sababta oo ah waxay si joogtaa ugu kici doontaa ficillo aan caadi ahayn oo ay ku rabto inay ku soo jeediso indhaha dadka si ay mar waliba dadku iyada u ammaanaan. 6, inanta xanta badan. gabadha xanta badani ma noqon karto xaas wanaagsan. had iyo jeer waxay ku mashquulsan tahay ama xiisaynaysaa dadka kale waxa ay qabanayaan iyo sida ay u nool yihiin, si ay uga hesho warbixin ay la wadaagto dadka kale. 7, inanta saluuga badan. gabadha aad jeceshahay haddii ay saluug badan tahay, isla markaana aanan lahayn kalsooni ay ku adkaysan karto hal go'aan oo keliya, iska ilaali, ma noqon karto xaas wanaagsan. haddii ay wax waliba laclac geliso oo ay saluugsan tahay, ha noqoto shaqadeeda iyo qoyskeeda, ogow guurkaagana way saluugi doontaa, marka dambana adiga nafsad ahaantaada ayay ku saluugi doontaa. 8, inanta ixtiraam la'aanta. gabadha aad doonayso haddii aad ku aragto ixtiraam la'aan iyo dadka oo ay ula dhaqanto si foolxun, iska ilaali, hana ku dawdayn guurkeeda, waayo berrito marka aad guursato ixtiraam darradaas ay dadka ku haysay ayay adigana kuula imaanaysaa, waxaana adkaanaysaa inaad ka beddesho dhaqankan, waayo waxay u taqaanay wax caadiya, kadibna caado ayay ka dhigatay. waa anigaa dhameeya hadalkayga, waa una ka dhammaaday dhankayga ee khayr badan asxaabtayda.